meeshan waxaa isugu imaatay beelaha mataqaanaa Samawadal kamid ah ama beelaha Ogaadeen kamid ah beelaha Talemuga kamid ah beelaha Samawadal kamid ah beesha Cabdalla kamid ah oo ah curadkii Cabdalla Ibraahim waxaa laga yaabaa dad badan igay dhageystaan ama la dhaho Abubakar Cabdalla in la dhaho Abubakar Cabdalla yaa way horta Abubakar Cabdalla waa curadkii Cabdalla Ibraahim laakiin dhaqan markii laga hadlayo waxaa la yaqaanaa qaababka qoyska wax ay ku qaybsadaan Samawadal wuxuu ku qaybsadaa 10 lafood laf kamid ah nahay oo la dhaho Baha Cabdalla Baha Cabdallana muddo aad u dheer ay soo jirtay oo soo shaqeynaysay oo quud iyo qaaraan mid la ahaa maxaa soo baxday dad yar oo fara ku tirisa in ay magaci iska wataan ayaga oo wax allaale wixii tala ahaan lahaa hadii siyaasad ahaan lahayd hadii dhaqan ahaan lahayd labadaba ay isku darsadeen oo wax ayaga ay dhahaan hadii uusan jirin uusan soconaynin adduunkana taas ma jirto adduunku wuxuu wax ku yahay in la wada tashado lagu wada hadlo maxaa yeelay markii baahanahay waxaana 5 qoys oo isu tagtay 3 qoys Cabdalla Ibraahim 4 qoys oo Cabdalla ah iyo qoys Ibraahim ku imaado marka aabahooda waxa waaye dadka ilaan abtir hebel isku yahay marka baha ninka aan garanaynin ama baha ahaado ama Soomaali kale ha ahaadee abtirkeeda waxa waaye tala wax la dhaho baha waa dad isu imaaday oo tashaday oo tala ku imaaday saas aawada hadii taladii la waayo marka waxa baxaysaa in meesha lagu kala dhaqaaqo laba ninka la yiraahdo Madooy iyo Axmed Cabdiraxmaan ayaa fariisteen waxay noqdeen go'aan kasta in ayaga go'aankay dhahaan uu shaqeeyo ama uu Samawadal dhexdiisa ay ka shaqeeyo wax u yeeriyaan bahana ayaga wax u yeeriyaan Ogaadeen in ayaga wax u yeeriyaan wax kalena ma aha waa bini aadan sidan anaga kala habaray oo hooyo dhaleen laakiin waxay dadku ku tiisheen marka ay dhahaan anaga dhahnay ama wiilasha dhaheen ama hebel ay dhaheen madaxdii mataqaana la soo doortay ee Soomaali ay soo dooratay ama Ogaadeen uu soo doortay ama mataqaana Samawadal uu soo doortay ama beesha Cabdalla ay soo dooratay madaxda waxay ka dhigeen wax jeebkooda ku jiro waxay dhahaan madaxda dhahday waxaan doonaynaa anaga hadaan ay beesha Abubakar Cabdalla ama u sheegaynaa Ogaadeenka gaaris degan saacadan laga bilaabo si odayaashii iga horeeyeen ay sheegeen cawasho nimankaas aan ka nahay waxa kale oo jirta dadka qoysaska waxaa la sameeyay wax dhaqan la yiraahdo geedkaas wuxuu loo sameeyay waxa waaye in lagu afgaabsado oo mataqaana go'aan lagu qaato wixii la isku khilaafaadka geedka loo keeno wixii la isku khilaafo geedkii la keen lahaa ee aan ku mideysneen hadduu ninkii doo anaga geedkii ma aqoonsanin hadda anaga ma kala dirin ninkii doo geedkii ma aqoonsanin waxa waaye hala kala dhaqaaqo waaye Soomaalidu waxa tiraahdaa dabeel hadaa imaato ninka saashiisu qabsada mar haddii geedkii iyo taladii aan isku lahayn ba ay kala direen nimankii waxay noqonayaan ninkaas inuu qoyskiisa ahaado nin Cabdalla Ibraahim baan ahay curadkii Cabdalla baan ahay Abubakar Cabdalla baan ahay nin isku filan baan ahay quud iyo qaaraan iyo wax kasta isku filan baan ahay ilaahay mooga cid kale aan mataqaana kaalmo weydiisanay malaha nimankaas ayaga waxaan u sheegaynaa inaan tala isugu imaanay inaanan magan u ahayn inaanan ayaga ku hoos jirin haddii ay dhaqan iyo walaalnimo iyo midnimo ay rabaan intaas oo sano aan soo wadnay hadday noo baahan yihiin waan u baahanahay haddaysan noo baahneen uma baahnin Abubakar Cabdalla nahay Cabdalla Ibraahim baana keenay waan isku filannahay baaq waxaan u sheegaynaa si odayaasha u horeeyay sheegeen si degdeg ah haddii jawaab loo bixin waayo annaga ma joojinayno tareenka annaga ayaga kala direen baha ha kala tagto ayaga dhaheen wixii baha ku heshiisay ayaga garmareen ayaga geedki burburiyeen ayaga khilaaf keeneen ayaga cid kala direen haddii kala direen maxaa way bidix u dhabaas kama arkay waayba maxay horaanba waxaan ku tagnay hal luga maxay wixii la qaybsay qayb waxbaan ku lahayn cid ma taqaan way goomoosneed talo waxba lagama siinaynin hadda midnimadan duqeydii baa soo dhiseen gaashaan buursigan aan ku jirnay tii hadan waxay noqotay in committee hadii meel la fariisto hadii ma taqaan nin iyo wiilkiisa ay wax ka hadlaan inay la dhaho waxaan anaga na soo marin ma soconayo hadda taas ma shaqeynayso waxaan sheegaynaa Samawadal beesha Abubakar Cabdalla afkeeda anaga ku hadlayno labadaas nin go'aankay gaareen waa go'aan cid ha kala tagta ah haddii dhaheen annagana oo dhaheen geedkii ma jiro waa baha ma jirto hadday dhaheen ma jirto annagana ma jirtaan leenahay ayagaa dhaheen sababtoo idinka geedkii baha ay ku heshiisay isugu imaanay mataqaanaa ninka saa uu yaqaano geed wuxuu yahay ninkii dheh aniga ma aqoonsani geedka waa baha ma aqoonsani marka daatan adi baha ma aqoonsani anigana ma aqoonsani baan leeyahay Abubakar Cabdalla baan ahay marka waxaan u sheegaynaa beeshii Samawadal waxaan haddii si degdeg ah arrintaas looga soo jawaabayo qoyska 11aad inaan nahay sababtay tahay baa waxay ku qaybsataa mataqaana waxay ku qaybsataa Samawadal 10 qoys
oo hadkii u dambeeyay ah reelka jiire waxaan u sheegaynaa Samodal kii 11aad inaan nahay haddii si degdeg ah arrintaas looga soo jawaab waayo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. meeshan waxaa iskugu imaatay beesha Abubakar Cabdalla waxaanan ka sheegan haynaa ninka la yiro Madooy waxaa jirta inaa daraad doorasho beel jiidhaneed baha iskugu imaatay oo ninkii ugaas noo ahay oo nin koomatiinimo siiye hadduu siiye la'agli Abubakar Cabdalla oo la jeedadiisa uu maanta haddana uu ku soo garab dhisay nin kale oo koomatii asag wato beesha Abubakar Cabdalla maanta waxay ka caban haasaa Madooy iyo Axmed Cabdiraxmaan ninka la dhahayo bahay waxaad ogaatiina labadaa nin waxay wadaan baha waxay soo wada shaqaynaysay 47 sano kutooka 47 sano wixii soo dhisnay maanta waxaa ku tuntay Madooy waa baha inay ka warqabto waxaa kale uu sheega beesha Samodal ninba meeshuu joogo maanta wixii ka dambeeyo hadduu Madooy raali gelin ka bixin waayo arrintaas Abubakar Cabdalla waxaad ugu imaanay qaaraan wixii ka doonto beeshaad ugu imaanay saa intaasaan idin sheega oo Abubakar Cabdallana uu ka cabanayo Madooy iyo Axmed Cabdiraxmaan aniga warkay intaasuu ku dhayna magacayga waxaa waay Cabdi Ibraahim Jaale markaan taa ka gudbo beeshan meesha iskugu imaatay waxaa waay beesha Abubakar Cabdalla waxaanan ka cabanahaynaa nin la yiraahdo Madooy taasoo baha waxay soo dhisneed amaleenya moodan 50 sano qaaraan iyo quud isla bixinay shayga fidma la dhahayna weelkeedu iska yaryahay fidma haddaad ka shaqaysana waxaa la arkaa qaranka inuu ku kala dhaqaaqo Madooy hadda wuxuu ahaa amaleenya ninkii lagu gaabsanay baha markii la dhaho oo ma aragtaa wax kasta loogu soo dhiibay beesha baha laakiin hadda wuxuu noqday nin ma aragtaa qunyar u socdo ma arag fidma dhalinaayo waxaa dhacday in la fariistay ciddan ma aragtaa nin walba sagaal buu qabay sagaalayaashii marka nin walba wuxuu soo doortay chairmanki ka hor shaqeyn lahaa daraad waa la fariistay suldaankii baa noo imaaday baha wuxuu soo qaatay ninka la yiraahdo Shafeec Mahad Hiirad inuu u noqdo beeshan chairmanki Baha Cabdalle ninka Madooy la dhaw wuxuu sameeyay gunti fufur buu galay uu naga daba imaaday nin shalay meesha lagu reebay ayuu soo qaatay haddana asag oo ma aragtaa ay nagu gunti fufuray beesha Abubakar Cabdalla sidee loo soo qaat macnaha Shafeec Mahad taasayna fidma ay dhalin ma ogiye wanaag ma keenayso arrintii hadday dhacdo walow wuxuu ku daraala dheen ninkan suldaankana maba garanay ninkan suldaankana waxaa soo qaadata beesha baha waa nin official nin dad wax ka baryay ma waa nin baha maanta u talinayo wixii laga talinahaana waa geed arrin siyaasadeed ma aha waxaan baaq u dirayaa madaxda Baha Cabdalla arrintan aad bay noo dhigtay annaka daanahay beesha Abubakar Cabdalla arrintan waxaan rabaa madaxda Baha Cabdalla inay ka soo hadasho oo waliba si degdeg raali gelin looga soo bixiyo haddii jawaabtan aan bixinayno la waayo waxaan u sheegaynaa madaxda Baha Cabdalle inay kala dhaqaaqto beesha Baha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aniga waa magacayga Qaasim Urduh Barre meeshan waxaan isugu imaanay beesha Abubakar Cabdalla waxaan ka hadlaynaa waa un hadalkii hadda laga hadlay oo ka cawanayno laba nin oo qoys Baha kamid ah ninkan la yiraahdo Axmed Cabdiraxmaan iyo Mahaway iyo Madooy Xuseen marka labada nin maxay noqdeen fidmadii Baha iyagoo qiil ka dhiganaayeen Shafeec Mahad iyo mahalkii waaskii Baha
labadaa ma aqoonsanin oo madaxdii bahaa aqoonsanayn yaana qeyli ka dhigan hayaan aninka madaxda aan waxay rabto aan rabnaa shaafiic mahad oo lagu durhayo nin bahe nin abubakar cabdallahi uu yahay abubakar cabdallahna bahaa qoyska ugu xoog badnay maanta inuu yahay wixii koomatii lagu weydiisaya inaa siyaasa dhanteed inay tahay oo beroo siyaasi uu dhinac naga ahay arrin siyaasana meesha lagama hadlihayo arrin tolaa laga hadlihayaa iyo geedkii iyo ciddii taladeedii tii iida ahayd talada iyo cidda qoyska taladiisana maxaa iska lehay sagaalaha iska lehay sagaalihii baa markaan fadhiisanay wuu soo doortay ninka geedka u joogo wuu soo qaatay oo shaafiic mahade hortiisana beesha samawadal bahaa a soo qaadatay oo meeshan gaaris joogto oo cid ka maqnaydna aysan jirin maalin hore maxaa dhacday mar la fadhiistay samawadal meel iskugu imaaday madooytu masalani ka imaaday unuu dhehe inay maxamuud adoonaa meeshan a ka jaymanna nin baa jooga oo fadhi gadaashan shalahad waa la fadhiistay maxaa laga hadlay arrintii iidaheed inay laba jayman lahaan karin baha unuu shaafiic uu yahay oo meeshan boqortooyahe ninkaa hore aabiisun horaan ahay haddana ninkaa sagaalaheen inuu qoyskaas yahay marka maxaa la soo qaatay shaafiic mahad madooy uu imaaday sagaalaheen ma aqoonsani wax isag sheegana ma rabno shaafiicna ma noqonayo waxa aana dhehe aan noqona niman buu saaka u yeertay meel buu la galay adaa xaashi ku siiyey soco saas iide yay baha ku kala tagtay hadday si degdegi arrintaas waxa looga soo qaban waayona baha dambe magaceed iskugu imaanayo ma jiro marka maxaan rabnaa sidaa ugu dhaqsi badan oo jawaab degdege arrintaas inay dadka madaxde oo bahee oo lagu hoos gabanahayo oo laleeyahay baha aan arrintan nala og iyo bahaa hebel diidan inay laga soo warbixiyo laba baha ma jirto baha sagaalahay dhisate sagaalahaasna waa la isku raacsanay meel lagu diiday iyo meel baha dhahnay sagaaladan ma oqaansano iyo taladiis ma rabnana ma ogno annaga sheemenine oo dantii cidda ka hadlay intaasan soo waday maan siyaasadii beri hore uu ninkan beri naga ahay in haddana cid godob asa gaara looga dhigo ma kasayna waxay ku dhacday doorashana ninba meel buu maray laba isku aabe isku habare kala meel maraysaa arrin doorashana meeshan ma taagno tii horena waa la soo dhaafay tan dambena lama gaarin hadday arrintaas ay tahay oo nimankii maanta madaxda ahaayeen oo bahana eekoos gabanaysaba ay lalahaa eeka madaxdii bahae waxaan sameeyeen de soomaalida maxay dhahdeen nin gorofo ku jiro murayaad ku jiro dhagax tuur ma bilaabo baha inay saas ku kala tagtay laba beri jawaab haddii la keeni waayona meeshan iyo masalaani ilaa siinaay abubakar cabdalla muxuu jawaabka sugayaa cidda beesha ilaahay masaayay baha laba beri aanaa nii qabanay labadaas beri haddaa laga soo jawaabi waayona sidaas yay baha ku burburtay oona lagu kala tagay